muuqaalkeenna hore waxaan kaga hadalnay dagaalkii Mu'ta iyo qaabkii Khalid bin Waliid uga soo saaray 3 kun ciidankii muslimiinta ahaa ciidankii ka tirada badnaa. intaas kadib Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam wuxuu furtay Makka. Furashadii Makka kadib waxay surursaday qabiilooyin Carbeed oo ay ugu waaweynayeen qabiilkii lagu magacaabi jiray Hawaazin iyo qabiilkii kale Thaqiif. waxaana damceen inay Makka muslimiintu ku weeraraan. ciidan aad u fara badan oo urursaday. Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam markuu maqlay wuxuu soo dhaqaajiyay ciidankii uu isla Makka ku furtay. waxaanu soo istaagay goobta lagu magacaabay Hunayn. dagaalku intaanu bilaabmin habeennimadii Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam wuxuu ciidanka qaybtiisa hore hogaamiye uga dhigay Khalid ibn Waliid. waagi markuu bariyay Khalid iyo qaybtii hore muslimiinta ciidankooda ahayd ayaa buurta ka soo dhaadhacay. waxaana la kulmeen khiyaano aad u halis badnay. qabiilooyinkii Carbeed ee Hawaazin ugu weyneed waxay u sii galaan muslimiintii dhar meesha ku taallay ama geedo meesha ku yaalay. qaybtii hore muslimiinta ay Khalidoodii oo aan iska filaynin ayaa hal mar labada dhinac leebab iyo waramo lagu soo gamay. ciidankii Khalid way kala yaaceen. badankooduna dib ayuu yaacay. Khalid wuxuu isku dayay inuu dib u habeeyo laakiin way noqon weyday. ilaa isagii leebabkii la gamay ku dhaceen oo faraskiisii uu ka dhacay. ciidankii ka soo fardhaday dagaalka ka soo yaacay qaybtii hore ayaa iyagoo yaacaya soo gaadhay qaybtii dambe Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam waday. qaybtii dambe Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam la socotay iyagoon ooyin waxa dhacay ay iska yaaceen iyaguna oo goobta dagaalka ka baxeen. Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam wuxuu u dhawaaqay ciidankiisii yaacay isagoo nabigii Ilaahay baan ahay. laakiin cidna may maqan foodada jirta awgeed. Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam markaa wuxuu habeeyay qaybtii yareed oo soo hadhay qayb kale oo maqashay inuu Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam goobtii dagaalka wali taagan yahay inuu soo noqotay. intaasoo isku tagtay ayuu Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam bilaabay inuu weerar qaban qaabiyo. laakiin Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam markiiba wuxuu tagay Khalid ibn Waliid. waxaanu dhahay Khalidnay waxaa loo sheegay inuu Khalid dhaawac soo gaadhay. markaasuu dhahay Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam ii geeya. kadib ayaa loo tagay Khalid ibn Waliid oo kici kar loo dhaawac aad u culusna soo gaadhay. markii inta dharka laga saaray seeftina laga dhigay ay Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam u masaxay meelii dhaawac ka soo gaadhay. mucjiso Ilaahi ah ayay ahayd. Khalid markii uu kacay dharkiina uu xidhay seeftiisina uu qaatay. ninkii dhiig baxay ee kici kar lahaa ayaa intuu kacay faraskiisina fuulay seeftii qaatay dagaalkana galay. waana mucjiso ka mid ah mucjisooyinkii Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Khalid wuxuu ku biiray fardoolidii Zubayr hogaaminayay. dagaalkina uu bilowday isla markiiba uu jabiyay muslimiintu qabiilooyinka Carbeed Hawaazin ugu weyneed. waxayna maalinkaa heleen muslimiintu qaniimadii ugu weyneed ee muslimiintu helaan muddadii Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam noolaa. dagaalkan 10 badan ay muslimiintu ka barteen. qur-aankan Ilaahay noogu sheegay inaanay farabadnidu aanay waxba tarin. waxayna muslimiintu markan ka badnaayeen cadowgoodii. waana markii ugu horeysay. waxaan soo kale ku aragnay dagaalkan geesnimadii Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam iyo goob dagaal inaan weligii ka cararin. oo ciidankii muslimiinta fardhaday ama yaacay waxay soo laabteen Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam intii la socotay qaniimooyinka urursanaya oo dagaalka ka yaacinba. Khalid wuxuu ahaa dagaalkii ugu horeeyay uu dhaawac soo gaadho. intaas kadib Khalid wuxuu ka qayb galay go'doomintii Taif iyo dagaalo kale oo ay ka mid ahaayeen xuruub ridda oo Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam markuu geeriyooday carabtu qaybo badan oo ka mid way ka noqdeen diinta siyaabo kala duwan. Abu Bakr Ilaahay ka raali noqday ayaa kuwa diinta dib uga laabtay la dagaalamay isagoo adeegsanaya Khalid bin Waliid hogaamiye ciidan. waxaana uu caansanaa dagaaladaas dagaalkii Buzaakha lagu magacaabay iyo dagaalkii kale Yamaama ee Musaylimatul Kadhaab uu ku dhimanay. markii uu dagaaladaas xuruub ridda Abu Bakr Ilaahay ka raali noqday soo dhameeyay wuxuu ururiyay ciidan uu Khalid bin Waliid hogaamiye uga dhigay. waxaana uu diray dhankaasi Furus. waxaana xaggaas ku dhex maray dagaalo badan ciidankii muslimiinta Khalid bin Waliid hogaaminayay iyo ciidankii Furus. dagaalada dhammaan Khalid ku jabiyay dowladii Furus. waxaana ka mid ahaa dagaaladaas Kaadma, Nahda, Walaja. dagaaladaas waxa ku dhinta hogaamiyihii weynaa Hormuz lagu magacaabay ee dowladda Furus aad loogu ixtiraami jiray. ninka Hormuz lagu magacaabo oo geesi ahaa mubaarazada ama marka kaliya la iskugu soo baxan aan lagu loodin jirin. wuxuu ku dhintaa dagaalkii Kaadma lagu magacaabay oo Khalid bin Waliid ay mubaarazo iskugu soo baxan Khalidna kurku ka jira. xaggaas ayaanu Abu Bakr Ilaahay ka raali noqday kelmadiisa caanka ahayd dhahay libaaxii Khalid bin Waliid wuxuu dilay libaaxii dowladda Furus. may ka cayseen dumarkuna dhalaan Khalid ibn Waliid oo kale. dagaaladaas kadib Abu Bakr Ilaahay ka raali noqday wuxuu Khalid bin Waliid u soo diray waraaqad ugu sheegay inuu taakul ahaan ugu tago ciidankii muslimiinta ee ka dagaalamay Shaam ee ay dowladda Ruumis hayeen
xaggaas ayaanu abubakar ilaahay ka raali noqda kelmadiisii kale caanka ahayd uu dhahay dowladda ruum waswaaska shaytaanka khaalid bin waliid baan ku ilowsiin doono. khaalid marka warqadii soo gaadhay wuxuu bilaabay sida ugu dhaqsiyaa badan inuu gaadho ciidankii shaam ka dagaalamay ee ruumisayeen. waxaanu maray saxarigii ay 5 cisho sida mucjisada looga badbaadeen. xaggaas ayaanu dagaalo kooban ku dhex mari doonaa ciidankii muslimiinta iyo dowladdii ruum ilaa marka dambe dagaalkii kama dambaysta ahaa laisla tegi doono ee yarmuuk lagu magacaabo ee muslimiintu ku jebin doonaan dowladda ruum. khidadii khaalid cajiibka ahaydna sabab u noqon doonto guusha muslimiinta iyo furashada dhulka shaam oo dhan. dagaalkaasna hore ayaan uga soo hadalnay hoosta descriptionka ama korka ayaan soo dhigi doona. kadib furashadii shaam khaalid wax dagaalo dambe muu gelin, da'diisuna way kortay. waxaanu u gooy dhanka cibaadada iyo masaajidada, waxaana la sheegay inuu soo kale fuqarada iskala fadhiisan jiray tawaaduciisa darteed. daacoonkii ka dilaacay dhulka muslimiinta waqtiga uu cumar talinayay wuxuu laayay muslimiin aad u fara badan, ilaahay u naxariistay. waxaana ka mid ahaa asxaabtii khaalid bin waliid iskugu dhawaayeen ee goobaha dagaalka soo wada taagnaayeen muddo badan. waxaana ka mid ahaa duraar, shuraxbiil iyo abu cubayda. saddexdooduba ilaahay ka raali noqda waxay ku geeriyoodeen daacuunkaas. sanadii 21 hijriyada khaalid ibn waliid wuu xanuunsaday, xaaladiisa caafimaadna aad ayay u xumaatay. ugu dambeyntiina uu geeriyooday, ilaahay ka raali noqday. intaanu dhiman wuxuu dhahay kelmadiisa caanka ahayd ay ahayd ma waxaan dhimanay anuu furaashkayga saaran falaa naamat acyunuuljubanaa, oo uu ka waday waxaan soo galay dagaalaadu fara badan, meelaha halis ahna waan soo istaagay. haddana saasay tahay waxa ay qorneyd inuu furaashkayga ku dhinto. hoog ayaa u sugnaaday fuliyada mowdka ka baqaysa. waxaan soo kale odhan jiray khaalid ilaahay ka raali noqda inaan caruus noqdo habeenkiisii koowaad ku jira. waxaan ka jeclaan lahaa inaan goob dagaal istaago oo aad u qabo oo aad u halis badan ilaahay dartiis. haddaan isdhaahno ka hadla waxay taarikhyahanadii muslimiintu ka yidhahdeen khaalid bin waliid iyo geesinimadiisii iyo taarikhyahanada kale reer galbeedkuba ma soo koobi karno. muuqaalkanuna intaasuu nalagu eegyahay iyo taariikhdii khaalid bin waliid. fadlan haddaad ka heshay la sii wadaaga asxaabtaadoo sheerdhe, subscribe na saar. wassalaamu calaykum.